kulankani oo looga hadlayay geedi socodka dastuur samaynta maamulka Jubbaland oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya. kulankani oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, guddiga dastuur samaynta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dadka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo Gado ee dalka Soomaaliya. ujeedka kulanka ayaa ahaa mid afkaarahooda looga dhageysanayay dadka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka, waxaana su'aalo kala duwan ay weydiiyeen guddiga dastuur samaynta maamulka Jubbaland ayaga oo ka jawaabay dhammaan su'aalihii la weydiiyay. wasiiru dawlaha madaxtooyada maamulka Jubbaland Cabdiqani Cabdi Jaamac oo kulanka soo afmeeray ayaa ka warbixiyay waxyaabihii la isku soo qaaday shirka, isagoo sheegay inay wada tashiyo kuwan oo kala ah ay hore ula sameeyeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya. waxaan mashruucan bilownay muddo hadda laga joogo 2 bilood iyo bar ilaa 3 bilood, waxaana aan ka guuraynaa mashruucii hore ahdi ku meel gaarka ee Jubbaland oo 3 sano ahaa, waxaana insha Allah aanu guuraynaa dastuur joogto ah oo ildahan doonto Jubbaland hadii Ilaahay idmo. marka maalmahan oo dhan waxaa jiray qorshe ama barnaamij lagu baahinayay dastuurka oo lagu gaarsiinayay gobolada Jubbaland oo dhan, Gado iyo Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. shirarkaasi magaalooyin kala duwan bay ka dhacayeen. kii diaspora ama dadka dibad jooga aan ugu talagalana waxay ahayd kii halkan ka dhacay maanta oo ka dhacay Nairobi. xaqiiqdii wuxuu ahaa mid taariikhi u ah waxyaalo badan oo ra'yi ayaanu ka helay oo na ka faa'iidnay. waxay noo tilmaameen daldaloolo badan oo ka jira dastuurada hadda Soomaaliya ka jira oo ay nagu la taliyeen inaan ku saxno kan Jubbaland hadii Ilaahay idmo. marka su'aalo qiimo gala oo aad u tiro badan ayayna la ka weydiiyay. waxaan rajaynayaa guddiga madax bannaan ee qorista in ay ku talageli doonaan wixii suuragal ah oo wanaag ah oo badan ay sheegeen dadkuna ay ka qaadan doonaan hadii Alla idmo. Cabdi Xakiin Saciid Maxamed, telefishinka caalamiga ah ee Kalsan, Nairobi.